إلهي باك لي mahadle واي حسي حسوس وانا إماموس يملقو إنان هرتين كسوا موضوع وحاوقو قيمة بدن قفك كلاسيو oo waqti ayaad siiseen aad baan idinka mahad celinayaa sida wanaagsan ee waqtiga igu soo horteen waxaan salaamayaa marka koowaad madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle iyo marwada koowaad ee qaranka waxa kale ونو mahadnaqayaa wasaaradda arrimaha diinta iyo dhaqanka iyo naadiga Somali Pen on dhammaantood si gaar ah ugu mahadnaqayo gudoomiye Ismaaciil Taani iyo tiimkiisa xarunta kale ubax iyana iyaduna salaamayaa waxaan u mahadnaqayaa وان هذا السلام يا ماير كعاصمة Djibouti بهذا RTD يا ماملك جورجا ومدة وحن سجارة وسلام يا صاحب كي إلياس موسى دوالة ويسوق مرتقات كي عن Djibouti كوي من داي لها وجه على يستين الله اللورد اللي يرضى يشعب كقيمة يسكر الدون isagana aad ayaan ugu mahadnaqayaa inta markaan ka yimaado maanta dhalinyaradan la hadlayaa waxaan la hadlayaa waayeelka iyo waxgaradka waxaan la hadlayaa haweenka xariirta ah ee goobta ah ee xurmaysan ee reer Djibouti ay soo hor fadhiya waxaan la hadlayaa shacab weynaha reer Djibouti ee kala afka ah balse aragti ahaan iyo dan ahaan iyo qaran ahaanba ku midaysan intiinani soo hor fadhida ee munaasabaddan ka soo qayb gashay inaad ka soo qayb gashaan waxa suuragal ka dhigay oo keenay qadarka iyo qoraalka Rabbi ka sakow waa nabadgelyada iyo xasiloonida iyo deganaanshaha dalkan ka jiray ku naaloonasaan ilaahayna idin siyaadiyaan leeyahay warreer Djibouti waxaad xasuusnaataan in gobonnimada iyo madax bannaanida aan murkacan ee aan carjabin ilaa maalintii la taagay inay tahay wax weyn oo dadka goonyaha iyo geesaha idinka xiga badhkood aad dheertihiin xaqiiqatan bini aadamka aan aqoon halkuu ka yimi ayuunbaa ku jahwareera halkuu u socdo ummad kasta oo raadraaca taariikhdeeda iyo sida uu soo noolayd iyo gobonnimadeeda iyo xorriyaddeeda ilaashatana oo ku faraadaytaa waxay ku faraadagtay aayaheega iyo mustaqbalka dambe ee dhalinyaradeeda dhaguhuna kolba wixii ay maqlaan ayuunbay ku baraarugsanaadaan xataa haddii maanka iyo garaadku sii ogaa ku celcelintuna waxay keentaa inuu qofku qaato oo aqbalo oo ku dhaqmo wax kasta oo ku soo noqnoqda inanka iyo inanta reer Djibouti hoosta ha ka xariiqdaan oo ha ogaadaan inay guuleysteen maalintii Djibouti goonida iyo gaarka isku taagtay caalamkan aynu joogno tartan baa ka socda afrikana waa la dhaliilaa waa qaarad dambaysa la yiraahdaa dhulka iyo meeshay ku taalo kuma dambayso waa diinta ee dadkeeda oo fikir ahaan iyo ficil ahaanba dadka kale ka dambeeyay ku dambaysaa waayo qof kasta wuxuu mas'uul ka ahaa ku soo koobay dangaara Soomaaliduna
badankoodu waxay mas-uul u yaqaanaan qofka marka xil dowladeed loo dhiibo ee uu xafiis fadhiisto ee gaari iyo askari ilaaliya la raaciyo balse diinteenna iyo dhaqankeenna iyo maskaxda fayoowe caafimaadka qabtaa intaa in ka duwan bay aaminsan tahay nabigeenna maxamed ha naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee wuxuu yidhi dhammaantiin mas-uuliyiin baa tihiin qof kastaana wuxuu mas-uul ka yahay kolba hawsha inta kaga beegan dadkeennii horena ilmuhu marka uu dabka ka baydho ayaa maqasha lagu aamini jiray halkaasuu mas-uuliyadda ka soo bilaabi jiray sidaa markay tahay haddii inanka waddamada reer galbeedka u dhashay loo sheego inuu dunida mas-uul ka yahay adiga yaan laguu sheegin in mas-uul lagaa yahay ee naftaada u sheeg inaad mas-uul qoys iyo qaran iyo qaaraddaadaba ka noqon karto isbeddelna lagaa doonayo danta guud xiliska saariddeedana haddii aanad ahmiyad siin oo aanad weynayn waxaad ogaataa in horumarka iyo waxaanshaha dalkaaga aanad weynayn qof kastoo bulshadiisa iyo dadkiisa iyo ummaddiisa hawl wanaagsan u qabtaa hawshaa wanaagsan ee uu qabtay haddii lagu maamuuso oo lagu abaalmariyo abaalmarinta lagu abaalmariyey waxay keentaa tartan horseeda in dadku ku barootamaan gudashada mas-uuliyadaha war sidaan indhahaaga doogga iyo cagaarka dhulka ka soo baxaa uga qarsoomi karin ayaanu u qarsoomi karin qofka gudashada mas-uuliyad saarnayd sidii ugu habboonad u gutaa kol ay ku tahay quruurad iyo qodax qof waxyeeli lahayd ood waddo ka qaado dalyari ma jiro haddii dadkiisu tayo leeyihiin tusaalena waxaynu ugu filan jabaan iyo ingiriiska oo dhul ahaan intay ku fadhido aynu ognahay ayaa labaduba dunida waxay ku qabsadeen aqoon iyo farsamo waayo waa dad kacay oo qof kastaa u kacay mas-uuliyad saarnayd gudashadeeda jabuutina geeska iyo gobolka iyo afrika waxay ka dhex noqon kartaa si lamida siday singabuur eshiya ka tahay waayo 40 sannadood ee ugu dambeeyey dalkani wuu xasiloonaa dadkiisuna waxay fursad u helayeen inay wax bartaan hubka ugu culus ee lagula dagaalamo jahliga iyo dib u dhacuna waa cilmiga iyo aqoonta hoos u dhigidda saboolnimaduna waa tallaabada ugu habboon ee ummad dhanka horumarka u qaado siduu qof kastoo inaga mid yahay hawo ugu baahan yahay si uu u neefsado oo uu u noolaado ayay dowladnimadana u baahan tahay dad muwaadiniina oo wadaniyiina oo dalkooda jecel oo ilaalinta qarannimadooda goonyaha iyo geesaha ka taagan dunidan aynu joognana dal kasta wuxuu leeyahay dano iyo masaalix u gaar ah wadamada caalamka ugu tanka weynana waxaa ka dhexeeya hirdan dhaqaale iyo mid siyaasadeed marka in quwado kala afkaara oo kala mabaadi' ah ay Jabuuti u noqoto sal iyo sali wada deeqda waxay muujinaysaa bisaylka dawladda iyo dalka reer Jabuuti sidaa ogtihiin ee ka warqabtaan ee la socotaan eed ka dheragsan tihiin dowladnimadu waa nidaam iyo system la wada leeyahay oo ku samaysma iskaashi bulsho kuna dhisan ismaamul iyo isxukun isla markaana leh qawaaniin dadka u dhaxa ummaduhuna dowladnimada ujeeddo isku mid u samaystaan ujeeddadaas oo ah fulinta wixii ka baxsan awoodaha shakhsiga ah ma jiro qof idin ka mid ah oo baahiyaha asaasiga ee biyaha leh oo caafimaadka leh ee garsoorka leh ee amniga leh gaarkii u qabsan karaa oo goonidii iskugu filan adeegyada cidda ummadda u qabataa waa dawlad si adeegyadaas ay u qabsoomaan dowladnimadu dadka waajibaad bay ku leedahay dadkuna xuquuq bay ku leeyihiin waajibaadka dadka lagu leeyahay
ee dawladnimadu ku leedahay waxaa ka mid ah inay nabadgelyada dhankooda ilaaliyaan, inay horumarka ka shaqeeyaan, inay cashuurta bixiyaan, inay shuruucda iyo qawaaniinta dalka u yaala u hoggaansamaan. waajibaadka marka ay gutaan dadku waxay helaan xuquuqaad. xuquuqaha waxaa ka mid ah inay amni ku noolaadaan, wax bartaan, caafimaad helaan. hantida ugu weyn ee dawladdu ku faantaa waa dadkuna waxa ugu qiimo badan ee ay helaan waa dawladnimo, waanad haysaan. waddanna wuxuu waddan kale kaga horumari karaa waa kolba dhalinyaradiisu siday u dhisan tahay aqoon ahaan, siday horumarka uga qayb qaadanayaan, ee wanaagga dhulkooda geesaha iyo goonyaha uga joogaan. waana marag madoon, waa hubaal in Jabuuti sanadba sanadka ka dambeeya ay horumarayso. haddaba Jabuuti sidan kasii qurux badan, ka horumarsan, ka wanaagsan helitaankeegu ayuu ku xidhan yahay, adigu kugu xidhan yahay oo ah muwaadin reer Jabuuti ah. dalkeenuna amniga iyo xasiloonida iyo nabadgelyada ayuu wax ku yahay. waxaa ka koobantihiin xukuumad talisa iyo shacab isku ah qaran. wax kasta oo qof idin ka mid yahay hagaajiyaa bulshaday u hagaageen. wax kasta oo qof idin ka mid yahay qaldaana bulshaday ka qaldameen. markaa hawsha muwaadinimada hayso dhinacaaga ka sax si hawlaha dalkaagu saxmaan. dhalinyaradan la hadlaya reer Jabuuti waxaan leeyahay xil weyn baa idin saaran. xil weyn baa idin saaran. muxuu yahay xilka idin saaran? waxaa idin saaran inaad kaalintiina iyo doorkiina qaadataan. waxaa idin saaran inaad xaqiijisaan guusha ummaddiina. waxaa idin saaran inaad riyooyinka ummaddiina rumaysaan. waxaa idin saaran in hayaanka iyo geedida Jabuutiga casriga ah lagu raadinayo aad qayb ka noqotaan, adeegsataanna nimcooyinka Ilaahay idinku galladay ee aqliga leh, ee cilmiga leh, ee caafimaadka leh. sida dhagaxa guud yaal dhulka adiga oo noqon inta nolosha kuu dhiman hadaf runa ka midha dhali, dhimashada horteed noqo dhaxal ruux ka tegi karaa. dhallinyaroy waxaad barataan inaad u socotaan sida diinka, balse jid saxan aad haysataan. halkii aad u socon lahaydeen sida deerada dheeraysa, balse jid qaldan aad haysan lahaydeen. muhiimna maaha inaad dulqaad yeelato si aad u noqoto qof weyn. waxaase muhiima inaad dulqaad yeelato si aad u noqoto qof ahaan iyo miisaan ahaanba weyn. maskaxda aadamuhu waa ta ugu qaalisan nimcooyinka Ilaahay inagu galladay. inkastoo xajmi ahaan iyo miisaan ahaan maskaxdu iswada leeg tahay, haddana waxay ku kala duwan tahay xagga wax soo saarka. taasina waxay ku xidhan tahay kolba qofku siduu u adeegsado, siduu jidhkeennu ugu baahan yahay cunto, uu howlmaalmeedkiisa ku qabsado, ayay maskaxduna aqoon u baahan tahay. cilmigan cirka lagu tegay iyo sayniskana iskama iman. intaa rag baa fikirayay, kana fikirayay inay wax soo kordhiyaan iyagoo adeegsanaya maskaxda iyo cilmiga. xilligana dunidu way guurtay oo waxay u guurtay dhanka tiknoolajiyadda casriga ah. inaad la guurtaan baa laydinka doonayaa, idinkoo waxyeelada tiknoolajiyadda iska ilaalinaya, waxtarkeedana isku ilaalinaya. waayo dagaalada dadka lagu soo qaado dhinaca maskaxda ayay qayb ka tahay. waxaad ogaataan haddii aragtidii qarnigii hore geeska Afrika taallay ahayd in xoog laysku gumaysto, xoogna laysku qabsado, aragtida qarnigan geeska taallaa tahay in si nabada laysku dhex galo, si nabadana laysku qabsado. soomaalida af iyo dhaqan iyo isiriyo diin wadaagta ah ee maamulada kala duwan ku kala hoos jirtaana geeska qoomiyadaha ku nool 20% bay ka tahay. balse marka laga warramayo balladhka iyo baaxadda dhulkooda waa 60%. halkaa waxaa ka cad inay Soomaalidu yihiin dadka ugu fursadda iyo mustaqbalka fiican wadamada geeska. waxaase muuqata iskaashi la'aantooda iyo wax isku qoris la'aantooda in khayraadka dhulkooda ku duugan khatar ku yahay. sidaa darteed dawladda Jabuuti oo gaadiiday oo adkaatay inay door iyo saameyn ku yeelato qorshayaasha geeska oo daraasado iyo cilmi baarsi ka samayso
kontonka sannadood ee soo socda siduu u ekaanayo mustaqbalka dhallinyarada soomaaliyeed waa mid idin saaran oo waa mas-uuliyad idin taalla. waxaanan ku ammaanayaa dowladda Jabuuti sida ururinta iyo ilaalinta afka Soomaaliyeed ay xil weyn iskaga saartay ee xudun iyo xarun ayuu noqotay. naadiga Soomaali Penna waa naadi inta halabuurka ah iyo inta qorayaasha ah oo ah muraayad weyn oo iska dhex daawadaan taariikh ahaan iyo xuquuq ahaan iyo magac ahaanba. in naadigaasi uu yahay dhaxal ummadeed ayaa cad. ciddii fikirkaa lahayd iyo cidda waddaba waxaan ku boorinayaa oon ku bogaadinayaa inay halka ka sii wadaan. hogaamiyihii dalka reer Indiya Mahatma Gandhi la odhan jiray oo inta badan ku caan ahaa labada gooca caddaanka ah iyo kabaha jaangariga ah ee dhaqanka dadka reer Indiya ka turjumayay ayaa lagu yidhi labadan goo iska tuuro suurkan xidho maadaama uu ka qayb galayay munaasabad gobonnimada Indiya lagaga hadlayay oo London ka dhacsay. markaa buu yidhi anigoo dhar ammaanaha xidhan oo nin kala samaystay sidee baan qadiyad ummadeed uga hadli karaa. marka waxaan idin leeyahay Jabuuti inay madax bannaan tahay waa la hubaal, laakiin xagga wax soo saarka ha u madax bannaanaato oo dadku ha tabcadaan oo beeraha ku foofaan oo markay ugu yar tahay kalluunka Jabuuti maadaama xeebteedu ilaashan tahay waddamada kale geeska waa fursad weyn iyo suuq ay haystaan inaan arrintaa ka faa'iidaysaan ayaan idinku boorinayaa. Japan markii Maraykanku ku dhiftay labadii bam sida taariikh ahaan ogtihiin ee Hiroshima iyo Nagasaki ay dhulka galeen ayaa baarlamaankii xilligaas wuxuu ka dooday war miyaynu aarsanaa mise 15 sannadood ee soo socda ayaynu dunida wax soo saarkeena ka iibinaa. waxay isla qaateen inay dunida wax soo saarkooda ka iibiyaan way ku guuleysteen. ummad hadday xagga horumarka u dhaqaaqdo xagga horumarka ayuunbay ahaanaysaa ummad ku tilmaaman oo tusaale dunida inteeda kale u ah. dhallinyarada maanta hor joogta ee reer Jabuuti qof kastoo ka mid ah waxaan doonayaa in la wadaagon u sheego inuu xil saaran yahay. xilka saaranna ay tahay waxa ugu weyn inuu isagu nolol samaysto jiilasha ka dambeeyana nolol u sameeyo. waxaad haysataan nabad, waxaad haysataan dawlad, waxaad haysataan fursadaad wax ku barataan. waxaa laydinka baahan yahay in aragtidiinnu noqoto mid anfacda dadyowga geeska. maalin dhoweytoole ayaa waxaan tegay xarun santarkan kale xarunta hogaaminta iyo halabuurka. runtii ma filayn inay joogaan dad tiknolojiyadda iyo curinta fikirka heerkaa ka taaganin. horta guusha reer Jabuuti waa intaasoo lagala sii dhawaado oon dhallinyaradana waan hambalyeynayaa in la garab istaago waa muhiim, waayo qof kastoo inaga mid dantoodu ka dhex arkayaa dantiisa ayuu ka dhex arkayaa. waxay wadaan baa wax weyna, waxay wadaan baa ummad anfacaya, waxay wadaan baa boqolaal sano sii jiraya. maanta tiknolojiyad fikrad xambaarsan baa dunida laga gadi karaa. waan hambalyeynayaa ubax iyo tiimkeeda. darajiye karaamooy marna deeq ilaahay marna duubka sharaftaay guulay dagaal badan qof hanlaa ku daydaya damaclaa ku raadsada dadaal baa ku soo helaa qolofdiinni yeeshoo damqashiya axdaayaa dulqaad kugu ilaashiya kuma sidanin dabaxsanin. libta laysu dacareeye mana weydi diburide marka aad ku durugtaba dabra himiladaade noqon ruux dalluuntiyo hadba daminka hoosyaal dusha sare ka garan karaa. duniya aad ka tahay boqor ha ka noqon qof dayraa
dahab baad u dhalatee sida maar ha doorsamin karaamaad ku dadantee sida dunya ha u lumin bini aadamka ilaahay abuuray way karaamaysan yihiin u arag inaad karaamaysan tahay dunya aad ka tahay boqor ha ka noqon qof dayraa dahab baad u dhalatee sida maar ha doorsamin karaamaad ku dadantee sida dunya ha u lumin adigoo dal hagi kara aduu haysla daadegin dhegtu way daaweyntee magacaaga dib mari taariikh baa dambaysee ha ka tegin wax laga dido waxa uunka kugu daraa daralee gub kaa dhiga dunsamaanta weeye noqon ruux ka daahira waxa sharafta kaa dila oo mudan ku dayashana mar inaad wax doontiyo mar inaad wax daysaa mar inaad wax diidiyo mar inaad wax damacdaa kolba waa duruufaha go'aanada dabraayiyo waayahaad la daris tahay docda aad ka joogtee daliilkaagu yuu noqon dannigiiyo malayntae qorshe yeelo kuu dana qofna dunida muu dhalan isagoo haldooro dadku wada qiraayo xidhan duubka sharaftee waxa ruux ka dhiga dayax duni wada iftiinsho ah dadaalkiiyo aqoontee hankuyuu dubkuu dhigin qof haddaad isdirirtaan misna xoog lagugu diro hal mar baad ku dagantee waxa duubi feedhkii duulaan ka sii culus maskaxduu lagaa dilo duxda waana maqalkaa daralee xambaartee duxda waana maqalkaa daralee xambaartee marka ruux dantaada iyo kuu akhriyo duruusaha dareenkiiyo dhagaha furo marka ruux guduraya dhaliishaada daydayo istifaaxal maahee u adkaysa deelqaaf haddii lagula dabagalo xuma lagula daydayo eeda daca laguu sudho ha qaniin dimintee u dulqaada aadmiga marka deeq laguu huray tahay hooy daba soco dookhaagu waa dookh ninkuu dilay kiraystee yaan duunya xilashadu kaa ridin dalluuntoo duruufuhu la haystiya wax madiida kaa dhigin shakhsiyadduna waa waxa ugu weyn iyo hantida ugu weyn ee qof ilaalinteeda iyo burburinteeduba ay gacantiisa ku jirto qof dunuub lahaa jiray dumay oo qubuur galay mar kaleeto degelkiya iman maayo dunidee dayashada qof liitiye dulligu ay tixraaciyeen waxaa darajo hoos maray ka damiirku meyd yahay dusha qolofku nool yahay ee xumaan ku dabagalay yaan dulqaadku kaa dhigin qof damiirku meyd yahay fudaydkuna adoo dagan magacaaga yuu dilin ha yeeshee duntaadiyo inaad tahay qof daacada adigoon ku daalayn dadka kale ka dhaadhici dabcigaagu kaa tahay ha ku sheego dabada dadka waayahaa baraa diihaalkiiyo dhibaatada ka dabaaladkoodee miyaan dani ku seetayn wakhti daran ku soo marin intaad dunida noolayd dayac maana soo arag maxaa duubigaaga iyo gacmahaaga dib u xidhay miyaan doorka nololeed qabyadii ku dacalool markuu doono qayrkaa aqoon inuu ku duuluu dayaxiyo cirkaa tago adna maaha daawo dabar garashadaadee wax kuu diiday curintee fikirkiiyo dareenkii kaa daboolay ii sheeg marka dayma raadcada dihashada wax kugu cusub durba curiyo qayrkaa adna maaha daba joog wuxuu doorba keenoo dalbashada ku kaaftoon marka damaca qayrkaa yahay duni dhan maaree adna maaha dibu guur oo hankaaga duuduub darajada wax kaa xiga oon dadaal ahayn sheeg waxaan jeclahay intaa inaan kusoo gaabiyo dhallinyarada reer jabuuti waynu wada joognaa intan inka badan baynu is odhanaynaa fursadaha waxaan siinayaa qolooyinka suugaanta ee halkan jooga iyo sidaan jadwalka ka arkayay Somali Pen oo maanta u dabaaldegaya xuska maalinta qoraayada ee Afrika waan idinla farxanaa baan idin leenahay qalbigan idinkala jirnaa baan leeyahay anigana farxad gaara ayay ahayd oo maalintii dhaweyd ee aan la kulmay tiimkii Somali Pen inaan xubin ka noqdo ayay soo jeediyeen iyagu casuumeen
xubintaasaan ka ahay in qoraalkeenna iyo afkeenna iyo diinteenna iyo dhaqankeenna inagoo isku duuban oo wada jirna aynu meel uga soo wada jeesanaa waa muhiim waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan hambaliyaynayaa abwaan laab salax oo aniga markaygii hore aanan garanaynin oo ahaa ii ahaa uun abwaan asaasay xidigaha geeska laakiin waxa uu yahay inta badan afka qalaad lagu tilmaamo personal development coach qof waxa la yidhaahdo weeyaan c'est un coach pour le développement personnel waa qof ka dhisa qofka shakhsiyadiisa iyo siduu yahay taana dhalinyarta intooda badan waa wax maaragtay muhiim u ah siiba xarunteennan kleega maskaxdu waa waxa keliyaata ama hibada keliyaata ama dan uu ilaahay isagoona qofkii nin naag qof madow qof caddaana u eegin uu u qaybiyey waxa dadka kala sima sida loo isticmaalo abwaankuu soo yidhi laabsalaxuu soo yidhi hadalladii aan soo wada dhegaysanay oo dhan waxay ahaayeen dhiirigelin wacyigelin nin walba oo maanta halkan ka dhaqaaqa waa inuu isweydiiyo maxaan naftayda ka bedeli karaa haddorkaan anigu isbeddel gaadhana maxaan u qaban karaa waddankayga oo isbeddel gaadhsiin karaa intaa aniga igu kooban laba kelmadood oo kooban baan jeclaa isagana abwaanka inaan ka tilmaamo xasan dhuxul markii uu yimiday odayada ila soo hadlo waxay dhahdeen xasan dhuxul abwaankii weynaa baa jooga barnaamij baan doonaynaa inaan u qabanqaabinno galabtaan is arkaynaa ee galabta noo kaalay subaxnimadii ka horraysay ayaan bal is yidhi anu xasan dhuxul kolkii hore waxaan u aqaanay uun nin xidigaha geeska heesaha u curiya bal waxaan yidhi bal xasan dhuxul waxyaalaha kale uu qabtay iyo waxaan uu ka hadlo bal youtube-ka yargal youtube-kii baan galay waxaan dhegaystay barnaamij baraarug uu ku magacaabay uu qabtay waxaa ii soo baxay abwaanka sokow inuu yahay nin aqoonyaana sida waxuu u dhigayo iyo sida waxuu u sharxayo iyo siduu wax u tilmaamayo qof methodologigii qof wax baadha sideedii u soo baadhay sidii loo gudbinayey messageka sidii ugu habboonayd u gudbinaya cilmiga iyo aqoonnimada waxaa u dheeraa abwaannimadiiyo kelmad kastaba meeshii ay ku habboonayd uu dhigayay aad baan ula tacajabay markaasaan yidhi war xasan abwaanu keligii maahine waa aqoonyaan waa cilmi baadhe isagana waan ku yidhi markaan wada sheekaysanaynay sidaasaan u sheegay waxaan wada garanaynaa qofka aqoonyaankii inta badan wuxuu la hadlaa maskaxda qofka abwaankuna wuxuu la hadlaa qalbiga iyo dareenka xasan labadiiba uu isku darsaday aqoonyaannimo inuu caqli kaala hadlo iyo inuu dareenkii iyo qalbigii ula hadlo kelmadda labaad een doonaya inaan ka tilmaamo abwaanka uun fursad waxaan u yeeshay inaan wada sheekaysanno in badan buu ii sheekeeyey abwaanku waxaan dareemay waxaan is yidhi waxaa la tilmaami jiro oo la sheegi jiray qofka abwaan dad abwaanoo garabdaar leh amba aad moodin inay wax ku soo daadegaan siduu wax u curinayo iyo siduu wax u abuurayo wuxuu iiga sheekeeyey qisado badan uu u soo joogay uu markii dareen ay gelisay markiiba uu wax ka curiyey wax ka abuuray marka aad baan ula tacajubo waxaan idhi waa abwaan ficlan la garabdaar leh abwaan aan aadna u rajaynayno in uu dhallinyarta iyo aqoonyaanka uu baraarujiyo uu wax gaadhsiiyo intaasaan jeclaa inaan ku soo koobo kelmaddayda waad mahadsantihiin salaamu calaykum